taliyaha qaybta 21aad iyo saraakiil uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada Hobyo halkaas oo bilihii la soo dhaafay uu maamulka degmada Hobyo uu ka soo gudbiyay cabasho la xiriirta dhisme dhulka dawladda ay ku hayaan dadka deegaanka gaar ahaan dhulka ciidanka badda ee degmada Hobyo. gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamuud Cawaale ayaa ku amaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida ay kaga soo jawaabeen cabashadii kaga timid maamulka Hobyo ee la xiriirtay dhismaha dhulka dawladda ay ku hayaan dadka deegaanka. waxaana soo booqday oo noo yimid taliyaha 21aad iyo maaragtay taliye sheekay taliye qooje saraakiil sarsara ah oo ka tirsan Galmudug ayaa waxay yimaadeen degmada Hobyo ayagoo runtii dhulal badan oo sharci darro ah ama maaragtay dawladda ay leedahay ay u yimaadeen inay maaragtay kontrolaan muddo dheerna runtii dacwadaas aan ka geynay dadkan aan ugu dignay inaysan dhisan dhulka dawladda ay leedahay dhamaantiis meel walba maaragtay dawladda leedahay in lagala soo xiriiro maaragtay maamulka degmada oo sharci darro ay tahay in la dhisto iyadoo dukumeenti cad aysan haysan dadka taas oo runtii degmada Hobyo xoogaa u keentay nabaro iyo iska qabsi ay ciidamada maanta soo gaareen degmada Hobyo si ay wax uga ogaadaan waxyaalaha jiro waxaan u bogaadinaynaa sida sharafta leh inoo soo booqdeen degmada u yimaadeen waxaan rabnaa insha Allah taala in nagala shaqeeyaan waxyaalaha yar yar oo maaragtay dhibaatada ama caqabadaha ka taagan dhulalka Hobyo kaliya ma ahan oo Galmudug dhan ka taagan tahay laakiin anaga teena haysato Hobyo ah ayaa muhiim noo ah. taliyaha qaybta 21aad General Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje ayaa tilmaamay inay mamnuuc tahay dhismaha dhulka dawladda. waxaan rabaa halkan aan ka cadeyno ka sheegno dawladdu dhulkii ay lahayd ee lagu shaqeyn jiray hay'ad walba hal ahaato cidii dhisataa mamnuuc bay ka tahay in la dhisto in la gato iyo in la degaantaba. waxa gaar ahaan rabnaa inaan sii tilmaano ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidanka Mariniska qaybtiisa Mariniska dhulka uu lahaa hadda aan taaganahay waxaan u nimid halkan noo sheegay in dad shacabi ay rabaan inay goostaan ama ay dib u geystaan ma dhacayso mana yeeli karno in dhulkan ciidanku leeyahay la rabo in lagu shaqeeyo danta guud degmadan iyo xeebtan halkaan taal aad arkaysaan inay maaragtay tahay meel istiraatiiji ciidanka Mariniskuna ay tahay xaruntiisii dhisnayd muddo ka badan 50 sano marka ma dhici karto in aan anaguna ku fiirsano dadkuna ay maaragtay ay iska dhistaan waxa mamnuuc ah in la dhisto in la gato. Maxamuud Maxamed Cawaale gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo iyo taliyaha ciidanka qaybta 21aad General Qooje ayaa digniin si wada jir ugu diray dadka ku hawlan dhismaha dhulka dawladda ee ku yaala degmada Hobyo. dadka waxaan ugu digaynaa shacabka ama ganacsatada inaysan ku suroobin dhulalka ay dawladda leedahay ayagoo kala tashanaya inay u yimaadaan odayaasha dhaqanka ama maamulka degmada si uu xeeraamiyaan ama u ogaadaan dhulkan inuu dukumeentigiisa sax yahay ama maaragtay dhulkan dhul oo maaragtay private ah u yahay. annaguna waxaan ugu nimid inaan cadeyno inaan dhulkan cidna gadan karin cidna yeelan karin. waxaan ka mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenka degmada oo shaqadan sii qabtay intii halkan ay joogeen waxaan rabaa maamulka iyo ganacsatada iyo intuba inay ku baraarugaan in la ilaaliyo dhulka ganacsataduna ay ku xadgudbin xoolahoodana ay si gelin. Saadaq Saciid Nur Galmudug TV Gaalkacyo.